fadhigii koowaad ee kulankiisa labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa ay ku meelmariyeen guddiga doorashada ee Gudomiyaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Koonfur Galbeed. Kulanka ayaa waxaa soo xaadiray 89 xildhibaan iyadoo tirada guud ee baarlamaanka uu ka kooban yahay 95 mudane. Idris Axmed Yacquub oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa ugu horeen warqadda magacaabista guddiga ee ka hor akhriyay baarlamaanka. magacaabid guddiga doorashooyinka gudoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Gudomiyaha Meel golaha wakiilada kadib markuu arkay qodobka 4aad faqradiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markuu arkay qodobka 2aad faqradiisa koowaad ee xeeroosaadka golaha wakiilada markuu tixgeliyay go'aanka golaha wakiilada ee ku go'aamiyeen tirada guddiga doorashooyinka gudoonka golaha wakiilada kulankiisii koowaad oo ka dhacay magaalada Baydhabo 24 Maarso 2020 wuxuu magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood oo ka shaqeeya doorashada gudoonka golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxayna kala yihiin xildhibaan Cusmaan Boole Macalin xildhibaan Cabduqaadir Xasan Cabdiraxmaan Jookar xildhibaan Mukhtaar Maxamed Aadan xildhibaan Aadan Cali Sheekh xildhibaan Binti Ibrahim Cali xildhibaan Maxamuud Sheekh Maaxi Yuusuf xildhibaan Shukri Cumar Maxamed xildhibaan Qaasim Maxamed Abuukar xildhibaan Xareedo Ibrahim Xuseen xildhibaan Idris Axmed Yacquub aniga xildhibaan Injineer Ibrahim Macalin Cali xildhibaan Dr. Cabdirashiid Maxamed Nuur Jile xildhibaan Shukri Faarax Cali xildhibaan Axmed Bashiir Axmed xildhibaan Cusmaan Maxamed Gaarane xildhibaankaasaan ugu dambeeyo tan waxay magacaabista Gudomiyaha golaha wakiilada soo saaray. Intaasi kadib xildhibaanada ayaa cod gacantaag ah ku meelmariyay guddiga doorashada ee gudoonka baarlamaanka sida uu warbaahinta u sharaxay Gudomiyaha ku meel gaarka ee baarlamaanka Xasan Cabdinuur Aadan Xasan Albo. go'aankii baarlamaanka oo guddiga doorashada tomoishan tahbnaad ayaal inta la ka ansaxayay codkii uu qaadi maynagada marna diid malawaya مجرد لان قابل سيهم حتى أجيب لي بنان مجرد كورن كما هي سيتو سغالنا برلمان كوفر دغ برلمان كلمات سيتو سغاكي هبنا كل ما غرالنا مرنا تم إيشانتي هبنا او غدغي دورشده غدونك برلمان يا غراله سيتو سغاكي هبنا markaa bayna hiray baarlamaanka tomoishan tahbnaad magiilu ku raabo walirow antiis kale shirkanta kiridaayo shirkii hirmi Gudomiyaha ku meel gaarka ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ku wargeliyay xildhibaanada baarlamaanka in ay kulanka dambe u dhici doono maalinta Sabtida ah oo taariikhdu ay ku astaysan tahay 28 bisha Maarso.